sidaasna waa lagu fasiraa. marka halkaa waxaa jirta qisas badan iyo riwaayooyin badan oo markaa labadaas malag xaalkooda ku saabsan. qasaskaas iyo riwaayooyinkaas waxaa la yidhaha mid keliya oo ka ansaxday ma jirto. waxaa habboon intaa qur-aanka uu ka sheegay in lagu gaabsado, maadaama riwaayooyinka iyo qasaskaas oo dhan la yiri wax ka ansaxay ma jiraan. halkaasna waxaad ka garanaysaa qiso mashhuuro ahayd inay ahayd oo yahuuddu xaalkooda ay ogaayeen oy la socdeen, oo markaa qur-aanku intii ulajeedada laga lahaa keliya ijmaal ahaan looga soo qaatay. wamaana way barayeen unzila la dejiyey calal malakayni labadii malag bibaabila ku sugnaayeen haaruuta iyo maaruuta ahaayeen. wamaa yucallimaani mana ay baraynin labadaas malag min axadin axad mayna baraynin sixirkaa xataa yaquulaa intay ka yidhaahdaan inamaa naxnu anagu fidnaanu nahay falaa takfur ha kufriyin. jiradayaanu nahay, fidnaanu nahay, ibtilo dadka lagu ibtilayn hayaanu nahay, ha kufriyin. oo sixirkaa barashadiisa iyo ku camalfalidiisa ha ku kufriyin. saasay dadka oran hayeen ilaa saa ay ka yidhaahdaan mayna baraynin. kolkuu diido qofku inuu barto mooyee wax kale uu diido oo u bareero sixirkaas barashadiisa iyo kufrinimadiisa ugana digaan, uu digiintaas yeeli waayo oo doorto sixirkaas ayay barahayeen. fayatacallamuuna way baranhayeen markaas dadkii minhumaa labadaas malag maabay ka baranhayeen yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almar-i qofka iyo wa zawjihi zawjadiisa ay ku kala geeyaan. qoyskii wax ay ku kala geeyaan ku kala qaybiyaan ayay ka baranhayeen. labadii ruux isqabtay ninkii haweenkii isjeclaayeen isla mucaamaloonhayeen wax dhexdooda ay ku kala geeyaan oo markaa qofba qofkii kale uu ka diro wax sidaas oo kale ah ayay markaa dadkii barahayeen oo sixirkooda ah. wamaa hum mana ay aha dadkii bidaariina kuwii dhiba bihi bisixri sixirkaas min axadin axad kuwii ku dhiba ma ahaanin ilaa biidni illahi ilaah idankiisa mooye. haddaba sixirku waa wax jira weeyaan. saamaynta markaa dadka uu saameynhayo sabab caadi oo kale weeyaan, saamayn dabiici ah oo asagu iska leeyahay ma aha. qaacidada kulliga ee islaamka ayaa lagu dabaqayaa wax koonka dhexdiisa dhacay inayna jirin ilaa biqadaa'ihi wa qadarihi wa iraadatihi wa idnih. ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo iraadadiisa iyo idankiisa mooye wax dhaca koonkaa inayna jirin. marka sixirkuna wuxuu ka mid yahay asbaabaha caadiga ah oo markaa ilaahay haddii uu doono uu saameynhayo, haddii ilaahay uusan doonina uusan saameynaynin. meelo badan sixirkaa lagu sheegay way jirtaa. saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiimin baa ilaahay yiri asagoo ka xikaayoonhaya fircoon saxaradiisii nebi muuse ay ku caaridhayeen markii ushii iyo xargihii iyo wixii ay soo qaseen ay dadka hortiisa keeneen oo dadkii ay moodeen bahallo oo meeshii wadayaacahayo ay moodeen. ilaahay asagoo taa ka warramay wuxuu yidhi saxaruu way sixreen acyuna annaasi dadka indhahoodii bay sixreen, wastarhabuuhum way cabsiiyeen, wajaa-uu way la yimaadeen bisixrin cadiimin sixir weyn ayay la yimaadeen baa ilaahay yiri. wuxuu kaleeto ku tilmaamay qur-aanku sixirka inuu yahay wax dadka lagu dhagrahayo oo indhaha khadeecaya oo aragtiyadoodii dhabta ay ka bedelahaya. sidaasna ilaahay wuu ku tilmaamay subxaanahu watacaala oo wuxuu yiri yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tasca. waxaa lagu taawageliyey nabi muuse sixirkooda in ay tahay adeesooyin yaacahaya inay tahay. sidaas ayay dadkii ku dheehgeliyeen. haddaba sixirkaas ay samaynayaan oo dadka ay ka baranhayeen labadaas malag oo ay ku kala geynayeen ninkii iyo haweentiisa ay ku kala geynayeen, ilaahi wuxuu leeyahay xaqiiqa ahaan uma ay dhibayaan axad kuma dhibayaan ilaa biidni illaah. ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa mooye axad kaleed kuma dhibahayaan. qofkii ilaahay uu doono inuu ku saameeyo kolkii waxaa iyo asbaabaha iyo waxaas qawaacidkaa sixirku leeyahay ay sameeyaan, qofkii ilaahay la doono inuu saameeyo waa saameynaya. qofkii uu ilaahay doono inuusan saameynayna saameyn mahayo wax kastay sameeyaanba. marka xaqiiqadu
waxay u noqonaysaa ilaahay qabihiisa iyo iraadadiisa ayay u noqonaysaa. sixirkuna asbaabaha caadiga ayuu ka mid yahay, waxa weeyaan qawaacid iyo waxyaalo la barto oo markaas dad qofka caadiga ah ka qarsoon, sidii wax uu qofku u rakari ama sidii wax u sameeyay ka qarsoon. halkaasna waxaad ka garanaysaa yahuudda kolkii kitaabkii ilaahay tuureen waxa ay raacayaan inuu kaa noqday. casharkana maanta intaasuu ku ogyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. casharkeena maanta wuxuu ka bilaaban hayaa aayadda 102 dhexdeeda. waxaan kusoo jirnay aayaadkii ka warramayay reer banu israa'iil xumiyaalkoodii, gaar ahaan markii kitaabkii ilaahay ay ka tuureen xaggooda dambe waxyaalka ay bedel ahaan u qaateen ee sixirka ahaa ayaan kusoo jirnay. ilaahay wuxuu noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala sixirka ay samaynayaan, waxyaalka ay ka baran hayeen labadii malag aan soo sheegnay, in ay ka mid ahaayeen wax ay ku kala geeyaan qoyska dhexdiisa. ninkii iyo haweentii isqabeen ay dhexdoodii intay waxsoo sameeyaan ku abuuraan ay ku kala geeyaan. ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa hum ma ay aha bidaariina kuwii dhiba bihi sixirkaas min axad kuwii ku dhiba ma aha ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa iyo iraadadiisa mooye. oo halkaa waxaa lagaa tusinhayaa sixirka saamayntiisa uu wax saameeyaa si ahaantiisa iyo xoog iyo quwo uu asagu iska leeyahay in ayna ahayn, ee ay tahay ilaahay hadduu ula doono qofka inuu saameeyo inuu saamaynhayo, haddii kalena inuusan saameynaynin. oo marka uu ka mid yahay uun waxyaalkaa asbaabaha ah oo ilaahay waxyaalo badan oo uu koonkaa dhacahay uu u jideeyo ama dariiq uga dhigo inuu ka mid yahay. haddii uu doono uu saamayn, haddii uusan la doonin saamayn mahayo. marka sidaasa ilaahay nagu tusaaleyn u leeyahay ma ay aha waxa ay baranhayaan kuwo axadna ku dhiba ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooye. wayatacallamuuna maa yaduruhum wax ayaga dhibahaya ayay ahaadeen kuwii baranhaya walaa yanfacuhum aan anfacaynin. marka waxa ay baranhayaan ee sixirka waa wax ayaga dhibahaya mana anfacayo. had iyo jeer qofka ku camal falahayana dhib waxaan ahayn oo u keenaya ma ay jirto adduunkiisa iyo aakhiradiisaba. xaalaysaasay waxaad arkaysaa inuu adduunka ku fidayo waxyaalo laga qoray kutub badan oo xarxariiq leh, waxyaalo kaleeto cazimooyin iyo waxyaalo la akriyo leh, magacyo loo dhawaaqayo leh, jin iyo waxyaalo kaleeto aan la aqoonin. waxyaalkaasoo dhan waxay ka mid yihiin nooca sixirka iyo shacwadada ayay ka mid yihiin. waxaana had iyo jeer ku tiirsada qofkaan ilaahay kalsamida ku lahayn. waxyaalo badan oo waad arkaysaa khuraafaad oo dadku ayna saas u ogeyn una iilanhayaan. masalan haddaan misaal ahaan usoo qaadno waxaa ka mid ah mingiska iyo booranaha iyo waxyaalo badan oo la xiriira oo sidii ku habboonayd ama dariiqa aan muxuu ahaa ee shareecada ama islaamka wanaagiisa looga leexanhayo. masalan jirada lama diidana oo qofku jiradu way ku dhici kartaa, magac kastaba jirada loo bixiye. laakiin qofkaasi jirada ay ku dhacdo waxyaalo badan oo waxaad arkaysaa jiradiisaas looga faa'iidaysanhayo, magacyo loo bixinhayo, dariiqyo kaleeto aan banaanayn loo raacahayo. isla waqtigaas qoyskii iyo muxuu ahaa mujtamaciina dhibaatooyin waaweyn u keenahaya, shareecadiina muxuu ahaa khilaafsan iyo islaamka wanaagiisa. ilaahi wuxuu leeyahay waxay baranayaan wax ayaga dhibahaya oo aan anfacaynin. walaqad xaqiiqe ah calimuu way ogaadeen laman ishtaraahu qofkii iibsada waxa ayaga maa lahu inuusan lahayn fil aakhirati aakhiro min khalaaqin nasiib inuusan lahayn. ilaahi wuxuu leeyahay waxay ogaadeen kuwii dariiqaas ku socon jiray yahuudda ahaa, sixirka iyo shacwadada iyo xariiqa ka dhigan jiray cuskiyo dadkana ku lumin jiray. waxaa arkaysaa xariiqyadaas oo xataa kutubta hadda adduunka ku fidsan aad ku arkaysaa in la leeyahay waxyaalo xariiq iyo waxyaalo kaleeto xariiqa gadaashiisa la aqrinhayo iyo nabi sulaymaan mulkigiisa iyo boqortooyadiisu waxyaalka ayay ku joogtay. nabi sulaymaan rasuul ilaahay soo diray buu ahaa, mulkigii iyo boqortooyada ilaahay siiyey iyo waxyaalkii waaweynaa waxay silayeen mucjizada rasuulnimadiisa iyo nebinimadiisa ayay ka mid ahayd. ma ahayn xariiq iyo sixir iyo waxyaalo cazimooyin oo la aqriyo kuma dhisnayn. marka waxaasoo dhan khuraafaad weeyaan. ilaahi wuxuu leeyahay walaqad calimuu way ogaadeen
lama nishtaraahu qofkii sharaysta sixirkaas iyo shacwadada iyo waxyaalkaas soo iibsada oo bedel u qaata maa lahu in uu lahayn way ogaayeen fil aakhirati aakhira min khalaaqin nasiib inuusan lahayn aakhira nasiib inuusan lahayn way ogaayeen yahuud wala bi'sa maabaa baas leh sharow ay iibiyeen bihi maaga anfusahum naftooda ay ku iibiyeen wixii naftooda ay ka bedel qaateen oo xooggoodii iyo xoolahoodii iyo waxtarkooda ay ku bixiyeen oo ilaa qofku wuxuu naftiisa ku bixinhayo xooggeedii iyo xoolaheeda waa wuxuu ku iibsanhayo marka waxa ayaga baas bay lahaadeen baa ilaahi leeyi low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwii og erib xumadiisa kumay iibsadeen xaqiiq ahaan haddii qalbigooda u dhacsanaan lahayd weeye walow annahum ayagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen wattaquu ay cabsan lahaayeen oo ilaahay ay ka cabsan lahaayeen lamasuubatun sawaab abaalmaris min cindillaahi ilaah agtiisa laga abaalmariyaa khayrun u khayr badnaan lahaayo waxa ayagoo raacayaan uga khayr badnaan lahaa ilahi wuxuu leeyahay hadday ayagu rumayn lahaayeen rususha ilaahay uu soo diray ay rumayn lahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay rumayn lahaayeen kitaabka ilaahay uu la soo diray qur-aanka ay rumayn lahaayeen wattaqow ay cabsan lahaayeen ku camal fali lahaayeen waxa ilaahay farahay raaci lahaayeen waxa ilaahay uu ka reebayo ka hari lahaayeen tawaab iyo abaalmaris ilaahay agtiisa laga abaalmariyo ayaa khayrun khayr u ahaan lahaydoo camalka asaga u khayr badnaan lahaa maxaa yeelay abaalmaris iyo tawaab iyo janno iyo ribo ilaahay ayay ka heli lahaayeen low kaanuu hadday ogaan lahaayeen yaclamuuna kuwo og la-aamanuu way rumayn lahaayeen oo wattaqo way ka cabsan lahaayeen arrinta hadday ogaan lahaayeen ilaahay iyo rasuulkiisay rumayn lahaayeen wayna ka cabsan lahaayeen oo wuxuu farahay yeeli lahaayeen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow laa taquuluu ha oranina raacinaa ha oranina waquuluu dhahaya undurnaa nafiiri wasmacuu maqlana walilkaafiriina gaalada cadaabun aliimun cadaab xanuun badan baa u sugnaaday aayaddan sababta ay kusoo degtay waxay ahayd nebiga asxaabtiisa markii uu wax u sheegayo ama wax u akrinhayo ayay oran jireen raacinaa na ilaali macnaha noo sug oo noo kaadi kaskayaga iyo maskaxdayada iyo aqoontayada nagu ilaali oo kolkaad wax noo sheegayso ha ku degdegin si aan waxa ayaga u garanno oo u xifdino sidaas ayay nebiga ku oran jireen kelimada ayada ah oo raacinaada ah ereygaas yahuuddu macno kaley u yaqaaneen oo luqadooda cibriga ah kolkii la eego kelimadaa way ku hadli jireen raacina way oran jireen ayadoo macno kale leh oo macnaha carabiga ay ku leedahay aan lahayn waxay oran jireen raacina bimacnaa doqonkayagayo ama raacina markii ya-daa lagu daro arijirkayagayo macnooyin sidaas ayay u oran jireen markii asxaabtii maqleen oo nebiga ku oranaya raacina ayay kelimadii u bedeleen macnihii ayaga dhexdooda ahay cayda ahay isku yaqaaniin markaasay nebiga kula hadli jireen oo oran jireen raacina bay oran jireen ayagoo mu'miniinta iskala mid dhigaya wala joodo gaar ana kale markaasaa mu'miniinta intay ku garteen bay ka joojiyeen oo yidhahdeen waxaa ha oranina markaas yidhaa idinkuba waa oranaysaan ilaahay marka aayaddaanu soo dejiyey oo mu'miniintiiba looga reebaya maadaama ay kusoo gabbadeen inkastoo kelimadu ay fiicnayd walajoodada asxaabta ay kala hayeenna ay fiicnayd maadaama ay kusoo gabbadeen yahuuddii oo ayagu si kale u bedeleen ilaahay waa ka joojiyey ilaahay marka wuxuu leeyahay soo mu'miniinta la hadlaya dadka ilaahay rumeeyeeno laa taquulu ha oranina raacina ha oranina markaad nebiga la hadlaysaan raacina lafdigaas ba ha oranina oo macnihiisu carabiga aan uu fiicnaayo na ilaali garashadayada nagu ilaali ha naga degdegin u kaadi oo si tartiiba noogu sheeg aan xifdini sidaasu macnaheedu ahaa laakiin yahuuddi kolkay kusoo gabbadeen waa laga joojiyey ilaahay wuxuu ugu bedelay kelimo kale oo la macno ah laakiin yahuuddi ayn u helaynin wax ay kusoo gabbadaan waquuluu dhahaya wandurnaa nafiiri ama noo kaadiyo noo sug kelimadaas oo wandurnaada ah dhahaya wasmacuu maqla waxa la idin leeyahay walilkaafiriina gaaladu cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujinaya aayaad kale ilaahay wuxuu noogu sheegay macnaha asaga wayaquuluuna waxay oranayaan yahuuddii samicnaa waan maqalnay
saasay oranayaan wacasaynaa waana caasinay maqalni laakiin yeeli mayno sidaasay oranayaan wasmac maqal bay nabiga ku oranayeen hayra musmacin kula maqashiyo qayrka adigoo ah ana alla kuma maqashiyo maqal warkayaga sidaas ay oranayeen waraacina bidahayeen waraacina ay oranayaan layam bi alsinatihim carabkooda ayagoo ku laabahaya oo ula jeedadii kelimadaas lahayd ka duwahaya qalluucinaya ayay sidaa oranayaan iyo wadacnan durid fi diinka ay durahayaan ayay sidaa u oranayaan walaw annahum ayagu qaaluu hadday oran lahaayeen samicnaa waa maqalnay wa adacnaa ay oran lahaayeen oo adeecid ay la imaan lahaayeen meesha wacasayna ay ka yiraahdeen wasmac ay oran lahaayeen oo markaa hayra musmacinta ayna ku oranin ku darin wandurna ay oran lahaayeen nafiir ama nookaad lakaana kaasaa khayran khayr ahaan laha lahum ayag u khayr ahaan laha wa aqwama u toosnaan badnaan laha walaakin lacanahum allahu ilaahay baa lacanaday bikufrihim kufrigooda sababtiisa ilaahay ku lacanaday oo falaa yu'minuuna rumayn mahayaan ilaa qaliilan wax yar mooye iimaan kale laga heli maayo saasna aayaad kale ilaahay noogu caddeeyey maa yawadu aladiina kuwii may jecla kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaabi kitaabka ehelkiisii ah wala lmushrikiina mushrikiintiina ma ay jecla an yunazala in la dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr in korkiina lagu soo dejiyo waxay iyo risaalo min rabbikum xagga rabbigiin laidinka soo dejiyo ma ay jecla wallaahu ilaahayse yakhtasu waa khaas yeela biraxmatihi naxariisiisa man yashaau qofku doono ku khaas yeelaa wallaahu ilaahay dulfadli fadli ku saaxiiba weeye alcadiimi ee weyn halkaana ilaahay wuxuu ku cadaynaya yahuudu siday u xasbahayeen nebiga risaalada iyo nebinimadana ay ugu xasbahayeen mushrikiintana sidaas oo kaleeta way xasbahayeen nebiga ayagoo muxuu ahaa kuwooda madaxda ay doonayeen in ayagu toodu ay socoto ay doonayeen waa kuwii oranayay adoonkan miyaa anagu raacayna adoonkan mooye wax kaleeto oo waxay lagu soo dejiyey miyaan la helin hebel iyo hebel maxaa loogu soo dejin waaye waxyaala sidaas oo kale oranayay xasidnimadu ayaguna way ku jirtay mushrikiinta marka ilaahay wuxuu leeyahay ma ay jecla kuwa kufriyey oo ehlo kitaabkii kamid ah kuwii kitaabka la siiyey laakiin way kufriyeen kitaabka ilaahay way ka kufriyeen kitaabka ilaahay oo dhan way iskamilayeen tawreed iyo injiil waxay kamilayeen qur-aanka way tilmaamahayeen rasuulka way tilmaamahayeen way farahayeen in la raaco qur-aankuna wuu ayidayaa marka way ka kufriyeen kutubtii ilaahay kuwa kufriyeen oo ehlu kitaabkii kamid ah reer tawreed kuwii yahuudda ahaa iyo kuwii kaleo nasaarada ahaa iyo walal mushrikiina mushrikiintuna may jecla kuwii kaleete mushrikiinta ahaa carabtii kaleetay an yunazala calaykum mu'miniinta yaa dushiina in lagu soo dejiyo min khayrin khayr khayrka waxaa loo wadaa waxyiga iyo qur-aanka iyo risaalada nebiga lala soo diray waxyigaas in lagu soo dejiyo may jecla min rabbikum xagga rabbiga in laidinka soo dejiyo wayna necab yihinkaa wayna xasbahayaan ilaahaysa asaga arrinta maamulay waana ogyahay qofka u habboon risaalada gudashadeeda oo uu u dhiibahayo sidii aayaadka ilaahay uu ku cadeeyey allahu aclam xayثu yajcalu risaalata ilaahay kii u ogaal badan weeye meeshii risaaladiisa uu yeelayo wallaahu ilaahay yakhtasu waa khaas yeelaa biraxmatihi naxariisiisa man yashaau qofku doonayo ku khaas yeelaa ilaahay asaga ku gooni yeela qofka uu doonayo naxariisiisa asaga ku gooni yeela naxariistaa waxaa loo wadaa waxyiga iyo risaalada iyo kitaabka iyo nebinimada u doorashadeeda naxariis ilaahay weeyaan marka qofku ku gooni yeelayo asaga qofka u suubada xambaari karayo marka qofku u suubada ayuu ku gooni yeelayo halka waxaa lagu tusinayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay kii u suubaday ilaahayna uu ku soo dejiyey wallaahu ilaahay dulfadl fadli kii u saaxiiba weeye galladaysi iyo dheeraadsiin kii u saaxiiba weeye fadligaasoo alcadiimi ee weyn marka ilaahay hadduu ku galladaystay ayagu waxay xasbahayaan ku xasbahayaan waa galladaysigii ilaahay fadligii ilaahay weeyaan cashirkeen maanta intaasu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 106 ee suuratulbaqara ka mid ah wuxuuna ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa oo uu isku bedelayo ama isku nasakhayo
iyo waxyaalo kaleeta ilaahay qudradiisa iyo mulkigiisa tusaalaynhaya iyo yahuuddii waxyaalo oo banaadkoodii ka mid ah. maa nansakh wixii aan bedelno ama nasakhno oo min aayatin aayad ah aw amase nunsihaa aan halmaansiino na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin mid khayr badan baan la imaanaynaa minhaa ayadii ka khayr badan aw amase mislahaa ayadii oo kaleeto ayaan la imaanaynaa. alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun qaadirun inuu yahay kii kara miyaadan ogeyn. haddaba ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala maa nansakh wixii aan nasakhno. nansakhdan waxay ixtimaalaysaa maa nansakh wixii aan nasakhnoon bedelno oo aan zuulino oo aayaad iyo sharci ahaa oo aan ku bedelno aayaad iyo shareecooyin kaleeta aan ku bedelno saasaa loo wadaa. waxa kaleeto oo ixtimaalaya in loo wado maa nansakh wixii aan soo naqlino oo bimacnaa nasakhtu lkitaaba sidaa oo kale kitaabkii baan soo guuriyey wixii aan soo naqlino ee aayad ah amase aanu dib dhigno oona soo naqliin ee kitaabka lawxul maxfuudka aan ku reebno ama aan ka soo guurino waxaan la imaanaynaa wax khayr badan wixii aan la soo dejinin wax dadka uga khayr badan oo xagga camalkooda fudaydkiisa iyo sahlanaantiisa sidaa uga khayr badan iyo ajirka ama ayagii oo kaleba. haddaba nasakha kitaabka dhexdiisa dhaca culummadu way isku khilaafaan. qaar waxay leeyihiin nasakh ma aha oo nasakha kitaabka qur-aankaaba kuma jiro ayay leeyihiin. waxyaalka nasakha lagu tilmaamhayana nasakh ma ahay leeyihiin. waxa weeyaan maraaxil islaamku uu soo maray oo maraaxilka axkaamtii ku habboonayd ilaahay uu soo dejiyey. marxalooyinka sidaas oo kaleeta mar alla markii islaamku uu marahayana axkaamtii sidaas ayay joogto u ahaanaysaa. laakiin waa marxalo ama waxa weeyaan aayaad iyo axkaam ku qaydan marxalada ayada. marxalada ayada markay gudbaanna aayaadka kaleeta ee munaasibku ilaahay uu soo dejiyey ayaa lagu camal falahayaa. laakiin marxalooyinka aayaadka laleeyahay waa la nasakhay ay kusoo degeen marxalooyinkii oo kale hadduu islaamku u noqdo aayaadka ayagaa xukunkoodii wuu baaq ahaan hayaa oo waa lagu camal falahaya. marka sidaas daraaddeed baan nasakh u jirin saasaa culammada qaarkood ay leeyihiin. waxaase loo badan yahay oo jamhuurtu ay u badan yihiin nasakhu inuu jiro shay waaqicana uu yahay oo qur-aanka u dhexdhacay. nasakha markaa waxay u kala qaadayaan 3 waxyaalood. nasakh xukunka keliya ah oo aayaadkii xukunkoodii la nasakhay qiradoodiina ay baaqi tahay. misaal ahaan ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fain yakun minkum 20 saabiruuna yaglibuu 200. saasa ilahay yidhi hadday idinka mid ahaadaan 20 oo sabrayaan waxay ka qaalib noqon hayaan 200 oo gaalada ah ayay ka qaalib noqon hayaan. haddaba aayaddaas waxa ay caddaynaysa ama laga garan hayaa halkii qof in lagu kallifahayo 10 gaalo ah inuu u dhigmo oo ka hortegi karayo. manaa halkii qofba oo muslimiinta ka mid ah 10 inuu ka hortegi karayo la dagaalamo waa takliif sidaa weeyaan. markaas dabadeed ilaahay waa fududeeyey xukunkaas. al'aana khaffafa allahu cankum hadda ilaahay waa idinka fududeeyey. wacalima waa ogaaday anna fiikum dacfan taagdaro inay dhexdiina tahay. fain yakun minkum hadday idinka mid ahaadaan 100 saabiratun oo sabraya yaglibu 200 200 ayay ka qaalib noqon hayaan. marka aayaddaa dambe ayaa taa hore lagu nasakhay oo xukunku markuu ahaa halkii qofba 10 qof inuu u birdhigo oo gaalada ah ilaahay waa ka fududeeyey. waxaa markaas takliifta ay noqotay halkii qof 2 qof inuu u birdhigo boqolkiiba 200 oo gaalada u birdhigi karayaan. sidaa ayaa lagu nasakhay. haddaba culummada kaleeto oo odhanayeen nasakhaas ma jiro siday odhanayaan marka aayaddan oo kale waxay odhanayaan sida aan soo sheegnay haddii muslimiintu taagdarro ay ku sugan tahay oo ay keenayso 10kii ruuxba inay muxuu ahaa 100 ruux ay qaabilaan ama muxuu ahaa halkii qofba 10 qof uu qaabilo sidaa haddii ay keenayso taagdaridooda iyo xagga tirsiga iyo xagga
cadada iyo cudadaba alaabta iyo hubka iyo ka taagdaran yihiin marka waa lagu kalifaya halkii qof 10 gaalada inuu u birdhigo ayaa lagu kalifaya haddii ayse ka badan yihiin tirsiga xaggiisa iyo xagga muxuu ahaa xooga kalaba marka lagu kalifi maayo halkii qof 2 qof inuu u birdhigo ayaa lagu kalifaya marka waa xugun joogta oo loo fiirinayo hadba duruufta islaamku marayaan sidaas ay culimada kale leeyihiin marka aayadan culimada nasakha ee jamhuurta muxuu tirayaan waxay ku tirinayaan aayad la nasakhay xugunkeedii qiradeediina ay baaqi tahay ila khanay waxaa kamid aayadaha saas oo kale sayaqulu as-sufahaa'u min an-naasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha waxay oran doonaan kuwa sufahada ee dadka kamid ah maxaa jeediyey mu'miniintii qibladii ay kolka hore ahaayeen ana qibladii laga soo kolka hore nabiga calayhi salaatu wasalaam u jeestay baytul maqdis ay ilaahay markii dambe uu amray in kaabada xaggeeda loo jeesto fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram u yiri mu'miniintiina sidaas oo kale ilaahay u faray marka xugun jira ee nabiga iyo asxaabtiisu ay ku amal faleen buu ahaa inkastoo aayaad haatan la akhrinhayo sidaas aynan u arag laakiin xugun wuxuu ahaa ee jira nabiga calayhi salaatu wasalaam ila wahwadiisa wuxuu sameeyay kama sameeyay wixii ilaahay iyo amarka ilaahay buu ku sameeyay xugun saa u jira buu ahaa markii ilaahay wuxuu bedelay oo nasakhay jeesigii qiblada baytul maqdis xaggeeda loogu jeesanayay wuxuu ku bedelay oo ku nasakhay jeesiga xagga muxuu ahaa ee kaabada loo jeesanayo marka xugun la nasakhay weeyaan xugun la nasakhay waxaa kamid ah aayaadka xukunkoodii la nasakhay qiradoodiina ay joogto walladina yatawaffawna minkum wayadharuna azwajan wasiyatan liazwajihim mataacan ila hawl مثلا kuwa idinkeedin kamid ah la oofsanayo ka tagayaan haween waxa dardaaran in u dardaarmaan baadushooda haweenkooda u dardaarmaan mataa ila hawl sana intii la gaaro hadda ciidadu sida ay kolka hore tusinaysaa in kolkii ay raggu dhintaan haweenkooda ka dhigtaan ciidatul wafaadku ay ahayd ilaa sana la gaaro marka ilaahay waa nasakhay wuxuu ku nasakhay والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيضا تنبي أيال ونسخي عدينيسا شكي دينتا المؤمنين تكميد أحوان كودي إن أي سوغيان نفتوض النكاح وكاتسن هيان 4 بلود يتبن بري انتلاقي جارو 4 بلود يتبن أشهر انتا أي مكا عددو دي أي أهانيسا مكا آياتي ردايدي ويتالا آيات طاهر xukunkeediina waa la nasakhay oo wax lagu bedelay ciddadii halka sana ahaanaysay 4 bilood iyo 10 casho ayaa lagu bedelay ciddatul wafaadki dhimashada ciddadeeda nasakh oo akhriska kaliya la nasakho oo aan xukunkii la nasakhin asaguna waa jira sida laga wariyay Umar ibn Khattab wuxuu yiri waxaan ahayn kuwa akhriya aayadda rajminta الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم سيد عمر بالغ الشيخي إنه يري وحانا هين آيات رجمك كوي أخرية شيخة أنا دقة يا دقة هذه زينيستان فرجموهما رجمية لا كدل البتة قنانبا نكالا عقاب من الله إلى حديث لك عقابة يترتب والله إلهي عزيز حكيم آياتا ساسا أخرين جرنيب هذا الأخرس كسيداسة قرآن كمجره أخرس كي أمرك على نسخي حكم قاسوسي باقوية نسخ كروحوية نسخ حكم كي يأخرس كي لوادي بكل عاي سيدي عايشة لغا الشيغي وحايتري رضي الله عنها إلى رأى كهذا القرآن كوحاسودي حق النجنته ب10 معلومات أيها كجرتو يسودكتي marka waxa lagu nasakhay b5 macluumaat ayaa lagu nasakhay marka tobanka oo 10 taas kelimadaas akhriskeedii xukunkeediiba waa la koryeelay ama b5 macluumaat inta akhriskeedii ayaa la koryeelay oo xukunkeedii baaqi weeyaan ilaahay sidaas ayuu noo cadeynaya ma nansakh min aayatin wixii aan nasakhno oo aayad ah أو أمس ننسها عن هالمانسينو أخس كذيبة تذكر عن هالمانسينو نأتي والله إيماننا بخير بخير بدن منها تاك خير بدن تيلا النسخي أما سلح المانسية مت وخير بدن
حسنات يا حاجة ثواب مرنت أبال مرنت وخير بدن أيان لا إيماننا أو مثلها أيدي أوكله أيان لا إيماننا ألم تعلم ميادا أجين أن الله إلهي على كل شيء كسته قدير قادر كيكر إنويه هذا روحيالك أي يهود أي كوها الجرين أما قولك قارقود أي سكود الجرين النبي رسالة إنه كل عنيان تاسوك لا يتاكم إذا سيد آيات كالإلهي كوير هدي أن بدلنا آيات كلام كان كده إلهي إنه أجيهي وحو سود الجنة قالوا حيرانها إنما أنت مفترض أدو مفترض عطاوكوب بين أبورانها آيات هاي ساسي أورنجرين markii ilaahay qudradiisa ay halmaansiin alam ta'lam miyadan ogay anna allah ilahi lahu inuu leeyahay mulku samaawaadka mulkooda iyo wal arla mulkigeeda samaawaadka inuu iska leeyahay mulkooda arla mulkigeeda abuuridooda maamulkooda lahaashadooda tasarrufkooda inuu leeyahay marka mulkigiisa wiisu sidoo doono ugu tasarrufin karin markii ilaahay qudradiisa qofku waxa soo dhan wax uu la yaabo ma noqon karaya wama lakum إذا نصرنا من دون الله إلهي سكودي سمي ولي إذا نصرنا ولا نصير كوكر قارنا إذا نصرنا إلهي أستقع يا إسكاله سماوات كملك جودة يا الله الملك جيده أدوكنا مليه دين أستقع سكودي سه مد ولي أقرب نمو إذا كوكر قارة مليه دين ولا نصير كوكر قارة ولو مثلها قريب أما صاحب يصيدين أهانيني من أجنبي السلاس إذا كسو قرمدنا إذا نصرنا إلهي سكودي أن تريدون ما واحد دونيسان أن تسألوا إلى سؤاشان رسولكم رسولكين كما سئل سيدي لو سؤالي موسى نبي موسى من قبل هر نبي هرتي سيدي نبي موسى لو سؤالي ميا دونيسان رسولكين لو سؤاشان وحيال السؤالات المناسبة هين أي نبي قصوا جيرين جرين أيوة قدر آية رسالة ديس وحكمت هين أورين جرين قرآن كان قال آية أسودة محوية ما سي جملة لو قصوا دجيه سيدي نبي موسى التوراة لو قصوا دجيه ما سيدا سكر القرآن